سبحانه وتعالى أدونك خضر حبيب عينانشة أي دشيء عنك قردراني إلهي سبحانه وتعالى نحرستي جنها كورابيو إهلديسي يا قرابدي يا قويسكي وكبحين إلهي سبحانه وتعالى سبري إيمانها كسيو مركو هوري وحن تعصيدا ودرينا دمان قويسكا غير حبيب عينانشة يا عينانشة يا دمان قبيل كرهير نور يا سمرون يا قدبورسي يا صومالي أردن بوحن لنا هاي هالكو كبحي وحكا خير بدن الله ينوجو بدلو مرك الله بعد وحن لنا هاي آس كمان تانو آسينا خضر معناه هذو معها إنه هشيس لقاضني حكومة دا جارة ما هكا لكن واجب كين صارنا إياها أو نقولها ما ركتها وحويا خضر حق المسلم على المسلم ayaanu maanta gudanayna sidaasaanu maanta nagu kaliftay inaanu aasno oo waajib bay nagu tahay aaskiisu marka waxaan hadalkayga ka dhigayaa laba qodob qodobka koobaad waxaan kula hadlayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland iyo ummadda muslimiinta iyo ehelka iyo qaraabada dhamaantoodba waan la hadlayaa waxaan leeyahay khadar weyn naga wada baxay dareenkiisa iyo dhibkiisuna weyna wada hayaa waxaanan ka tiiraanyeysanahay inuu cadaalad ilaa maanta oo 15 tahay maalintii la dilay maanta ku tahay aanay wali suuroobin in la qisaaso marka gacan ku dhiiglihii dilay baaqa labaad waxaan u dirayaa xukuumadda waxaan leeyahay khaasatan garsoorkaan u dirayaa maxkamaddu waxaan leeyahay darajadii koobaadna waad xukunteen dilka tii labaadna waad xukunteen warasadii waad u yeedheen oo waad ka buuxiseen waxaanay qoreen in la qisaaso waxaan idinka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan fulisaan waliba waxaan jecel lahay halkaa uu maaragtaa waxa weeyaan dilku ka dhacay in lagu fuliyo oo ummadda aad samirsiisaan sidaasaanu maxkamadda ka codsanaynaa xukuumaddana waxaan leenahay inaad ku daba joogsataan khaasatan madaxweynuhu inuu degdeg u saxeexo oo uu hawshaa fuliyo oo uu maaragtaa ummadda dejiyo oo uu maaragtaa waxa weeyaan sabirsiiyo ayaanu ka codsanaynaa hadday taasi dhici weydo wixii ka yimaada مسؤولية حكومة إيو محكمة سرع ميليتريغا قادي دونا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون نفكستا دلبيكو قرنتها والدنيا جوجتا إلهي بوقو تلقلي نينا ساعدي سداف ماي الله نحرست مفروعة إلهي جنة بو إلهي قيني مانتا وقعن قردر إنوي دي شيء intaasi oo islaamiyana maanta janaasadiisu ku tukatay alxamdulillah ilaahigay waarisadina samiriye iibaan allah siiyo waxaan leenahay wixii kale way soo wada dhamaadeen maxkamadihii ninka way soo xukumeen waxa weeyi fulintii baa hadhay fulintuna waxay ku xidhan tahay madaxweynaha isagay u gaar tahay waxa weeyaan waxaan leenahay madaxweyne maanta inaad Soomaaliland badbaadisaa laga rabaa inta meeladay ka gubanaysa waad ogtahay maanta dumarkii iyo caruurtii ay wada sare joogaan maxay noqon waliba u leeyahay adiga maanta waxaan ka rabnaa waa shakhsi ilaahay baa dilay naftisha ilaahay baa dilay ninna abaal looguma qabo waxaan murtidaydu ay taan ku sheegayaa madax meel ka sareyso la salaaxa ma jiro odaygii ugu weynaa baan reer nuur waxaan leeyahay madaxweyne ninka ilaahay dilay dilkiisa iyo gobolka awdal kala dooro adigu midkii ku roon qaado war meelahay qadar Allahu naxariisto جنة الفردوس الله جيو ارجل انت لك ايام مالت جلاسدي سيكون تغتي الهي ربي جاي اساقنا مرتقى قبطة الهي هكالدقو الهي مرتقى قبطة الهي هكايلو عشان يتبان كام الموت وحن سوين لي وقد دالين لي سيدا أطلنا سومالي الله سيدا إسلام لماذا أطلنا سيدا ماذا ركتي كل دليل كواحد دليل بأوطنا يندوني نوشني يتبان كاشة ميت كل لوجي لي ويفول ويدي
وقدر الله labadii maxkamadood wixii ay fuliyeen fulintii in lagu daro labadii maxkamadood waxay xukumeen fulintii in lagu daraano way suuroobi weyday qadar Allah hayna laakiin waxaan leenoo sheegaynaa maanta awshan iyo 10 ay tahay hadday 5 kale lagu gaadho way nagu dheertahay way nagu amri dheertahay yeel ma ka ku samri mayno intii ka badan u samri mayno waxa kaloon tacsiideynaya dhammaan beesha reer nuur iyo beesha samaroon dhammaantoodba waxa weeyaan sidii fiicnayd ay uga tiiraanyoodeen ee ay uga gilgiseen ee ay uga xumaadeen ee ay qoyskaasi ula adnaxeen waxa weeyaan way ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waana waajib saaraa weeyi waa ku ay iska lahaayeen weeyi intaa kadib waxaan leeyahay madaxweynaha muuse biixi baan anugu la hadlayaa waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa maanta halkaa taalla annagu ninkaa wax shuruuda iyo wax aanu ka wada hadalnay iyo cid waxna tidhi ma jirto waan aasnay haddii aanu reenuur nahay haddii aanu samareen nahay waannu aasannay waxaan sugannaa ninkaa dilka ahaa qisaastiisii baan sugannaa hadday dhici weydo balaayada meeshaa ka timaadda xumaanta meeshaa ka timaadda waxa mas-uul ka noqon doona muuse biixi ilaahi raajicuun kulli nafsin daa'iqatulmowt mowdkiisii iyaa yimiday maanta maalintii uu dhaafayey ma ahayn xaqii baa isaga ku yimiday innagana waxaa inagu timiday geeri foolxun geeridaa foosha xun la inagu timiday waxaannu ka tacsiyeynaynaa kow qoyskii uu inankaasi ka dhashay qoyska reer nuur weyne iyo gadabuursi dhammaantii iyo somalilan oo dhan baannu ka tacsiyeynaynaa allaha samir iyo iibaan allaha inaga siiyo maxabbadiisiina ilaahay meel fiican oo kale abaalkale ha inoogu gudo waxa maanta yaanay u qaadanin xukuumadda iyo dadka ay maaragtay hoos taallo warqaddii ninkaa loo saxeexay ee aannu saxeexnay ee dilka ahayd ee maxkamadu ku xukumeen yaanay u qaadanin in ninkii la aasay dabadeedna uu noqonayo sida kuwa kale ku sii jira meesha ma noqonayo wax weyn baa nagu kacsan haddaannu gobolka awdal nahay iyo haddaannu gadabuursi nahay iyo haddaannu nahay beesha reer nuur iyo haddaannu nahay warisadiiba waannu aad iyo aad baannu u kacsannahay waxaananu doonaynaa in la noo fuliyo xukunkaa ku dhacay gacanku dhiiglaha sida gacanta gardaran u dilay walaalkayo haddii ay taasi dhici weydo wixii ka dhaca annaga hadalka yagu wuxuu ku kooban yahay haddii ay fuli weydo xukuumaddu ay fuli weydo oo muuse biixi saxeexi waayo in la dilo ninkaa uu dadeji waayo weliba annaga hadalka yagu wuxuu ku kooban yahay wixii ka yimaada dawladda ka mas-uula wixii ka yimaada muuse ka mas-uula marka labaad waxaan leeyahay beelaha samaroon dhammaan gadabuursi iyo reer nuurba ilaahay samir iyo iibaan haynaga siiyo walaalkeen anigu hadalka badin maayo muuse biixi madaxweynaha waxaan leeyahay saxiixaagii baa hadhay sharciga in la mariyo ninkaasaan diyaar u nahay waxaan leeyahay muuse balaayo daaman la qabtay ilaa daba la qabto ma laha balaayada somalilan maanta ka aaloosanina way fara badan tahay balaayadaa balaayo kale ha ku korrin baan leeyahay ninkaa ilaahay abuuray baa hadhii sharciga ha la mariyo walaalkii buu diley hadduu walaalkii dilayna in loo qisaaso sharcigu dhigayaa haddaan cuqaashii weliba warisada nahay weliba xigtadii nahay waxaan leenahay ninkaa hala noo raaciyo haddii la noo raacin waayena waxaan la filayn baa dhici doona annagu intaas baan leenahay allah ha u naxariisto go'aan qadhaadh buu ahaa qaadashada aaska marxuumku balse waxaan ku qaadannay taladii tolweynaha reer nuur ayaabaan ku qaadannay inaan maanta meydkaygii aasanno waxaan halkan ka sheegayaa maanta inaannu ilaawi doonin khadar xabeeb ilaa uu helo caddaalad ilaa uu helo inaannu dhammaantayo aananu saa ku ilaawi doonin waxaan leeyahay dad baa lahaa meelaha reer nuur mag bay qaateen warkaasi waxba kama jiraan weeyi reer nuur waa uu ka siman yahay tan dhammaantiiba reerku waxaan madaxweynaha gaar ugu sheegayaa haddii ay dawladdu isku daydo
inay dhagaha ka furaysato baaqa dhalinyarta iyo uqaasha gobolka awdal wixii ka dhaca iyadaa ka mas-uula oo madaxa u ridan doonta ugu dambayn waxaan codsanayaa dhammaanba dhallinyartii lagu xidhay marxuumka dartii in la sii daayo oo xadhigga laga sii daayo ayaan codsanayaa